Assalaamu calaykum asxaabteena ku xiran janalkana Sia Media. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaynu ku gorfeyn doonaa shanta buurood ee ugu dheer qaaradda Afrika. Haddaba kusoo dhawaada muuqaalkaas oo faahfaahsan. Mount Baker waa buurta shanaad ee ugu dheer buuraha ku yaala qaaradda Afrika. Waxay ku taal xadka kala jara Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waxaa markii u horeysay dusheeda sare la fuulay January 1960, waxaana fulay nin Australian ah oo lagu magacaabi jiray Roberto Guerrera oo ay weheliyaan laba nin oo British ah. Waxayna kor u qaadan tahay dhirir ahaan 4844 mitir, waxayna leedahay 15892 fiid. Buurta afraad ama lambarka afraad ee buuraha ugu dheer Afrika waa Mount Baker. Waxaa laga helaa Uganda, gaar ahaan meesha ay ku kala tagaan labada wadan ee Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Waana gobolka ay ku taalo buurtan, waxaana lagu magacaabaa Rwenzori. Buurtan waa buurta labaad ee ugu dheer saddexda buurood ee iska agdhow kuna yaala gobolka hadda aan soo xusnay ee Rwenzori. Wadajirka buurahan saddexda ah waxay sameynayaan xagal saddex geesood marka laga eego dusha sare, waxayna kor u qaadan tahay dhirir ahaan 4890 mitir, waxayna leedahay fiid gaaraysa 16040 fiid. Lambarka saddexaad ama buurta saddexaad ee ugu dheer buuraha Afrika waa Stanley. Buurtan waxay ku taalaa gobolka kala saara labada wadan ee Uganda iyo Congo, waana gobolka lagu magacaabo Rwenzori. Waxay dhirir ahaan ku fadhisaa 5109 mitir, waana midda ugu dheer buuraha labada wadan ee Uganda iyo Congo, waana midda saddexaad ee ugu dheer buuraha Afrika. balse buurtan waxaa lagu tiriyaa inay ku taalo Congo maadaama ay xagga maabka xigto dhinaca iyo Congo. Horeeyay fuulayna waxay ahaayeen Duka Bruza iyo Barti sanadka markuu waa 1960. labo ama buurta labaad ee ugu dheer qaaradda Afrika waa Mount Kenya ama buurta Kenya. waa buurta ugu dheer Kenya, isla markaana waa buurta labaad ee ugu dheer buuraha qaaradda Afrika. meelaha ugu sareysay buurtan waa cabsi. buurtan waxa ay ku taalaa inta u dhaxaysa beeraleyda bari iyo gobolada dhexe ee dalka Kenya. buurta Kenya waa isha laga helo dadka sumcadda leh ee dalka Kenya, waxayna kor u qaadsan tahay dhirir ahaan 5199 mitir, waxayna leedahay fiid dhan 17057 fiid. dadkii u horeeyay fuulay buurtan waxay kala ahaayeen Halford Mackinder oo ay weheliyaan Gwadeth Kasela iyo Joseph Barkaderla markuu ahaa 1999. lambarka koowaad ama buurta koowaad ee ugu dheer buuraha qaaradda Afrika waa Kilimanjaro. buurta Kilimanjaro waa buurta ugu dheer qaaradda Afrika. waxaa ka dhacday 3 volcano oo ah volcanooyinka ugu xun ee ka dhaca dalka Tanzania. buurtan waxa ay ku taalaa gobolka Kilimanjaro, waqooyi bari dalka Tanzania. waa buurta keliya ee ugu dheer Afrika, waxa ay kor u qaadan tahay dhirir ahaan 5895 mitir dusha sare ee badda. dadka u horeeyay tagay soona ogaaday waxay ahaayeen Hans Meyer iyo Ludwig Bartis Jaller sanadka markuu ahaa 1889.